madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii ugu horeysay waxa uu meel fagaaraha ka sheegay waxa uu tuhmayo inay sabab u tahay in la weeraro shirkadda isgaarsiinta Hormuud oo bilooyinkii la soo dhaafay xarumo badan oo shirkadu ay lahayd la baabi'iyay hanti badan ay uga burburtay shaqaale badan qaarna ay dhinteen qaarna ay dhaawacmeen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka qayb galay xaflad shalay shirkadda Hormuud ay ku qabatay Muqdisho oo lagu soo bandhigay jiilka shanaad ee internet 5G ayaa waxa uu sheegay in shirkadda isgaarsiinta Hormuud iyo hay'adaha hoos yimaada ay yihiin kuwa ganacsi ahaan ugu tunka weyn Soomaaliya ugana muuqda bahda ganacsi ee dalka Soomaaliyana wax weyn ay ku soo kordhiyeen sababta ugu weyn ee loo beegsanayeen ay tahay in shirkadaasi ay meel bannaan timid Soomaalina ay u noqotay mid ay ku tashadaan dadka Soomaaliyeedna dib iyo dheef la qaybsatay maadaama ay ka hormartay amaba ay tahay shirkad weyn oo ka dhex muuqata ganacsiyada kale ee dalka ka jira sababtaas ayuu madaxweynuhu ku sheegay inay keento in lagu hungoobo ama la dhibaateeyo oo al-shabaab iyo argagixiso ay weeraraan mararka qaarna dawladaha dariska ah ay duqeeymaan ay duqeeymaan ka geystaan xarumihii ay shirkadu lahayd xataa meelaha qaarna dawladaha reer galbeedka ay dhibaato culus kala kulmayso madaxweynuhu waxa uu sheegay iyadoo ay xusid mudan tahay in shirkadda Hormuud shaqaale badan oo kamid ah argagixisadu ay ka dileen xarumo ay ka baabi'iyeen meelaha ay ka taliyaan shirkadda Hormuud laga diiday in laga isticmaalo simkaaradeeda haddana ay jiraan dacaayado iyo dhibaatooyin shirkadu ay la kulmayso oo ku aadan inay galaangal iyo xiriir la leedahay kooxda al-shabaab wuxuuna meesha ka saaray aragtidaas tusaalena wuxuu u soo qaatay in loo jeedo in Hormuud dad badan oo muhiim u ahaa ay ku weysay weerarada kooxaha argagixisada ah ee Soomaaliya ka dagaalamay xarumahoodiina lagu baabi'iyay sidoo kalena xubno badan oo shirkadda kamid ah dhaawacyo iyo dhibaatooyin kale hadda ay la jiifaan waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya ay garab taagan tahay shirkadaas talaab kasta oo lagu difaaci karana ay qaadi doonto maadaama Hormuud ay tahay shirkad isgaarsiineed dalkana baahi weyn ay u qabto kalana qayb qaadatay dhibaatooyinka dalka ka jira dadka Soomaaliyeed oo dhanna ay shar ku yihiin ama ay wax ku leeyihiin haddii shirkadaas ay dhibaato gaartana muddo kooban Soomaaliya laga dareemi doono saameynta ay ka dhalan karta waatan qayb kamid ah khudbadii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka jeediyay shalay xarunta magaalada Muqdisho ay bandhigan ku qabatay shirkadda Hormuud isagoo isbarbar taagay difaac adagna u muujiyay in shirkadan ay dawladdu garab istaagi doonto laakiin waa haddii shuruucda iyo sharciyada dalka u yaala ee dawladdu gacanta ku hayso shirkadda u hoggaansato shirkadda Hormuud meeqa injineer iyo meeqa shaqaalaha iyo meeqa maxaan ku yiraahdaa mas'uuliyiin ah oo shirkadan ay leedahay ayaa nimanka dhibaateeyeen oo ay maxaan ku yiraahdaa la wada garanay meel kasta dalka joogo meeqa tower ama maxaan ku yiraahdaa xarun isgaarsiin oo ay leeyihiin ayay qarxiyeen aan dheereen muddo dheereen hadda dhow aan sii waxaysnayn maxaan ku yiraahdaa waa dhibaatadaas ay qabaan xuduudaha taawarada iyo facility ku yaala sidoo kale waa dhibaatada ay qabaan marka waxaa keenay prominence-ga iyo maxaan ku yiraahdaa soo bixidda iyo awoodda iyo muuqaalka iyo doorka yani horumarineed ee dalka ay ku leeyihiin ayaa keentay way isaga dul qaadan doonaan laakiin dawladda Soomaaliya waxaa ka go'an shirkadaha heer qaran nationalka noqday ee shirkadaha isgaarsiintooda ma Hormuudka iyo shirkadaha isgaarsiintooda bangiyada oo dhan maxaan ku yiraahdaa shirkadaha waaweyn ee maxaan ku yiraahdaa ka shaqeeya maaliyadda sida xawaaladaha oo dalka dacaladiisa oo dhan wada joogahay dawladda Soomaaliya in ay difaacdo oo ay danahooda ilaaliso kooxaha ka dagaalama Soomaaliya Daesh iyo al-shabaab ayaa dhowr jeer waxay weerareen xarumo ay shirkadda Hormuud ku lahayd kii ugu dambeeyana waxa uu ka dhacay maalmo ka hor suuqa Bakaaraha meel u dhow gaar ahaan aagga Daalo oo la qarxiyay xarun ay shirkaddu ku lahayd xarumo kale oo ay shirkadda Hormuud ku lahayd Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho ayaa la qarxiyay waxa sidoo kale jirta in deegaanada al-shabaab meelaha qaar laga xiray dhowr xarun oo ay shirkaddu lahayd taasina dhibaato weyn ay ku keentay adeeg ay bulshada u haysay